بلال رضي الله عنه بلال الحبشي رضي الله عنه maalintuu dhimanayay ee sankaraadku qabtay ayay islaantiisu dul baroortay ku tiri waa xasrataah waa xazanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yiri na aniga ha igu dul dhawaaqino ha igu dul balanbalino ha igu dul qayline waxa tiraada quli waa farxataah waxa tiraada waa farxad dabu ka yiri markaas ay ku tiri maxaan ku farxaa sawdiga iga dhimanayo ma wuxuu gadan nalqa al-ahibbah محمدا وصحبه أنا بريت ولا وحى الله كل ما يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سيبان الله كل ما يا جيل كيبان كجري جيل كان كجري بان كبحيا جندي محمد وقليبان قل يا بوليه لماذا؟ لأن بلال رضي الله عنه مبشر بالجنة بوها مبشر بالجنة هبينك نبينا عليه الصلاة والسلام معراجك مركو صونق نبي وكي كيري بلال إني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة يا بلال شنقد هذا كبهاga شنقدودي أيان جنة هرتيدا كم مغلي محادك قبضي صدالك كو قادب رسولك يريد وحور يا رسول الله أنه وحان لازمة طهارد أيان لازمة ماشا ويسدو أيقا جبتنا وانكو ويساقاتا لأن الصلاة إلهي إنو يقدر أيبان تكدا انتو الله يقدر أيبان تكدا مرقابو نبيكو قد جوابو كيري هذه هي التي بلغتك تااد مقامك كو قادي وويساقبك لازمتي إيا مرقاد ويساقاتا لبدا ركعدو تكنيسو تااد مقامك كو قادي وطابو رسولك يري ولا لا يلقفك بنا آذنك وحق درجadaada kor ku qaadaya ee qiimo ku yeelaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini aadanka kor u qaadaya waa iimaankii amalka saalixa man kana yuriidu al-izzata falillahi al-izzatu jamii'a qofusiyay usika ya muad waxaan kugula dardaarmayaa buu nabigu ku yiri la tad'anna fi dubri kulli salah an taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tagin inaad tiraadid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa taacadaada iyo dhikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaagayga maada nabigu ma siinayna ka jecel yahay adduunyo ma siinayo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nabi maxamed jeclaado waxa la siinayaa a'maal ilaahay u dhaweynaysa waxa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wa ala al-khazaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayo nabigu siinaya wala adri habeenka mu'aad bin jabal kayfiyadee ku saxday ubay ibn ka'b يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وسماني بود يا رسول الله رسولك إلهي باكل أبي بن كعب وأنا أقول أخرست فينا قرآنك إلهي أي نبي محمد ليه يا أبي بن كعب ربي غيباي أمري إن أنك قد الآخر هذه قد الشهادة سورة البينة لم يكن الذين كفروا markaasuu wasamaani ma rabbigayba aniga magacaabay markaasuu ha subhanallah farxadu ku saxda habeenka saxaabigaasi bal ka warrama tasawwaru takhayalu bal ka fikra ilaahayba magacaabay oo leh ya muhammad ya jibriil u sheeg nabi muhammad waxaad ku tiraahdaa ubay ibn ka'b suurada korkiisa ku akhriyo ma rabbigayba magacaabay فبكى أبي فرحت بالأوي فرحت يبكون من شدة الفرح محادتك إلهي كجعل هذا هودو دمي راعين هنونك راعين شهودو دمي راعين شريعة دي راعين باطلك مي راعين حق أي راعين نفتو دمي أضعين إلهي بأضعين diintan islaamnimada inaku maanta aan haysano inakuna maanta aan ku abtirsanayno umay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaadu waa salaadii quraanku waa quraankii xadiidku waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajidu waa masaajidii xagee u jeesanay baan u jeesanaynaa suuradii faatixada akhrinay baan akhriyaynaa laakiin qulubtaas bedeshay maanta ha isbedelay
قلوبته أثبت الشيء. هذا أبي بن كعب، وهذا معاذ بن جبل، وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه، وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. جبريل عليه السلام أيا سمد كسو دادقيا مكو إمنيا وحكى لأم السعودو وحكى لمسدو صلانيا بشارو سدا أيو أسدا خديجة أسدا رضي الله عنها أم المؤمنين. يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعادو الشيكتا الله السلام كان سلام قسدا وعن الله بشاري وبشاري قصر جنة كويا اللي قلي دونتا قصري ومركي قشنا وحسا وحنا إيا اللغوي يقيلوها بيراتي أيسا مغلي دونين با الله بشاري وبشاري بوكيدي. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم كان إلهي نقو قيمين ما يا قبيل، إلهي نقو قيمين ما يا العق، إلهي مادة نقو قيمين ما يو، إلهي وحاو نقو قيمين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشا دون تجوب طبقات دا دون تكجر وحا إلهي كقول حساب تميا وإيماني الله كبق ويان. بلن كيس إلهي كما بحين من باجن إنك أسبدل إلهين اسم بدلين جل وعلا. فنتبع الهدى حنونك هدار رعنو ونهوذي إنك الصهدنو إلهي تبارك وتعالى صدو دتك الراليك وغن نقضي أيا إلهي إنك الراليك وغن نقضي مركو مسلم إيقادي ومسلم هذيك أنا كادي وخير با إلهي كل الضوني. نعمدان وضن هوس هنو اغنو نمبا دائما قال يوستا ننتوغا ايا اركي wuxuu rabaa daymanka dahabka qaaliga inuu ka dhaco ka xado waxa uu ku yiri halkaad u socotaa wuxuu tuulada baan u socdaa aniguba tuulada baan u socday han israacnayna mari buu ka yiri waa tuug tuulada isagu ma socday jawharadan iyo daymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa taacad oo iska seexdaa laakiin tuuga habeenkii ma seexanayo uu shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadha jeebadihiisa oo dhan buu ka baadha uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxayo eegaya xeraysanaya uu yaaba war waa kan habeenkii oo dhan waa raadiyay habeenkii xaq u dhigaas maalintiina uu haystay haddana habeenkii kala soo galay sidii sillimada uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaalada u socdaan markay u dhawaatay runta u sheego wuxuu ku yiri anigu tuulada baan u socday oo aan ku soo raacay jawharada qaaliga inaan ka dhacon ka xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan ka waayaa habeenkii halkeedgiisa buu ka yiri wuxuu yiri cadceedu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayo jeebadaadan ku ritaa buu ka yiri xaguuna ka raadinaya isagu ya jawharada qaaliga isagee jeebadiisa ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kale uu ka raadinaya mithaalka maxaan u soo qaadanaya war waxaan kulli baanaynaa adduunkan iyo aakhira inaka haysana waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimada sideeda u qaadano waa quraanka kariimkoon barano ku amal falloon ka shaqeyno oo wuxuu noo xalaaleeyay aan xalaalshano waxa uu quraanku naga xareemayna aan xaraan u aragno nabigeeni muhammad alayhi salatu wasalaamna aan ku dabadayano taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kale ka raadinayna إلهينا أمنك إيمانك كشاقي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا كو إلهي الرمي تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمانك وغنى شرك أنا كلن أمنك كواسه ليا بإلهي أمنك إلهي عيدا كمحرن دولنا إلهي كمحرن إلهي أمنك وحاو كحري إيمان دبا إلهي كحري هذا دتك إيمان دبا لي مادام وإيمانكوغا شركة أين كلرين إلهي بلان وحوق هذا إيمان أمنين أين هليان هنون كان أين يكوكواس أي متيسن يهين نولول ونكسم من دوننا كل جين سو مربنا
ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku doonay han noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsan ugu macaan waxa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa inagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaa oo camal saalix bay kamid tahay noloshii wanaagsaneed ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin dhibaataysan yihiin iimaanka ilaahay quraanka uu ku sheegayo iyo camalka saalix ee quraanka lagu sheegayo iimaanka iyo camalka saalixa kan maanta inagu aan haysano maaha waa kay saxaabada rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbiga Abi Bakar ku jiray iimaankii qalbiga Bilaal ku jiray salaadii Abu Bakar uu tukanayay salaadii Abu Hurayra uu tukanayay salaadii Umar tukanayay tan loo jeedo waa taa weeyaan waayo dadkaas oo ahaa iimaankii camalka saalixa mathal baa ilaahay u soo qaadanaya مثل والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلهي بأمر خاتكعي إني مؤمنين دبا أي هايين وإلهي أي رميين وإرقد أي رميين وكتبت أي رميين وآخرة أي رميين ورسوش أي رميين ما دام إيمان كوكو إلهي وكامل كدقي كو الله جدو وكو صادق معه إيمانك أمد الله دوني إلا قارسيين وإيمانك صحابة أقو muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yiri quraanka waxaan ku haynaa wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin waxa ilaahay leeyahay waxa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniinta maanta adduunyada mu'miniintu waa kuwan dhibaataysan oo gargaarka ilaahay wuxuu ilaahay mu'miniin buu yiri gargaarka ilaahay waa inoo ballan qaaday inuu noo gargaarayo laakiin mu'miniintu quraanku sheegaya ma nahay maanta inaku kalimatul iimaan quraanka way ku taalaa لكن مؤمنينتي آوية كلمة التقوى قرآنك ويكوت الله لكن متقينتي آوية كلمة المحسن قرآنك ويكوت الله لكن محسنينتي آوية كلمة الصبر قرآنك ويكوت الله لكن صابرينتي آوية كلمة القانتين قرآنك ويكوت الله لكن قانتينتي آوية كلمة العلم قرآنك ويكوت الله لكن علماء الربانيينتي آوية كلمة الذكر قرآنك ويكوت الله لكن ذاكرينتي آوية صفاتkan quraanku uu sheegayo la rabaa inay quraanka ku taalamaahine waxa la rabaa waxan quraanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qoran tahay in la helo loo baahan yahay khilaafada Uthman bin Affan radiyallahu anhu ayaa nin yahuudiya masjidka soo galo yiri aawiye quraankiini buu ku yiri muslimiintii waxay u tilmaameen Abu Darda ila waka quraanka yagi Sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu anhu ayaa suuqa magaalada Madiina soo galay iyadoo salaadii ay dhawaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoogii oo dhulka sida u yaala ay ka dhaqaaqeen ay masjidka u aguugayaan xagga dambe siigadii boorku ka kacayo markaas Umar bin Khattab wuxuu akhriyay aayada quraanka ninkii doonaya inuu arko aayadaas rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا آيات دايو شقين سينو أركو أصحاب محمد وكوا سيقبو ما أنت إنك السوق يدين ولا ليال مركا اللي مركا لا يدامو سوق مسلمة أو مسلمة مي إن عدانو فرنسيسا هي دين الإسلام كسوق لي مسكيت كالله كيني إسلام نمدي بالله لقيني muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaa isla yar sheekaysteen muslimado Soomaaliyada gabadhii buu aabaheedu u yimid oo gabadha waan jeclaaday ay dhisayeen way jeceshahay odaygii baa ku yiri maad islaamta adigu anu muslim baan ahay buu dhowr sano ba islaam baan ahay hal maalin masjidka kaama arkine wuxuu yiri marka la aadimo muslimiinta masaajida inta soo galaysa iyo inta haraysa yama badan buu ka yiraahdeer ariyama badan inta haraysa badan wuxuu inta masaajida galaysa ku xiroonaysa xilliga la aadimo anigu kuma biirine kuwa banaanka joogan ku biiray buudi kuwa ku biiray
marka aadaanku dhacayo la tukanayo kuwa dibadda joogaan ku jiraaya kuwa soo galaya kuma jira buuri kuma nabiirin kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dajiyay ma hayna quraanka ku qornaata maaha ma hayna diintu memory ay ku taala maaha quraanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dajin quraanka waxa loo soo dajiyay in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa 100% muslimiintu salaada inay ilaalinayaan soonkii baa laynagu farad yeelay waa in ay noqdaan muslimiintu 100% kuwa soomaya qadbul basarka laynagu waajibiyay waa in muslimiintu 100% indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yiri waa in muslimiintu 100% xaaraanta ka dheeraadaan waa in dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shoogiya laabtooda ka muuqato ninkii doonayay buu Umar ibn Khattab inuu arko aayada quraanka oo shaqeynaysa rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah هاي يقبلوا وأكوا أصحاب النبي محمد هل قفكوا هذه ما يسوق إلى المسجد حقه إلى بيت الله عز وجل الله أكبر هذا مغلان وعي هيان ودندول كيسدا ودقين قدونا الليباني قول إلهي يكتي سيد الله جل وعلا قول إلهي باحيا عز شرف إلهي باحيا يسعد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها وما قال هذا مكان لقود حدون صدور لعذابه لكن مركو أعمالي إيمان لي مدي وكان النبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا شنقد هذا كبها الشنقد ودي جنة هرت إذا كم مغلي هل كان محدكو قاعد يشيك برسولكو كيوري والله هبينك بلال سيدابو كو سحديك ولا تاع هبينك فرحة ردد madaxweynaha ku amaanay managerkiiba ku amaanayay aabahaba ku amaanay oo ciyaalka adiga ka dhex amaanayay ilmaha marka la yiraahdo uu farxaya ninka shirkadda u shaqeynaya marka la yiraahdana ninkii shirkadda iska lahaa company-ga lahaa ayaa shaqo fiicnidaada hadalhaya markii la yiraahdana farxad buu marka qofkaasi reereyn baa laga dareemaya hadii la yiraahdo wasiirkii ministerka ku amaanayayna ka sii daran baa maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam ayaa bilaal kule yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada horteeda ka maqlay billaahi calaykum habeenka bilaal sidoo ku sixday kula tahay farxad daraadeed sidoo ku sixday mucaad habeenkii nabi maxamed maalintuu nabi maxamed mucaad bin jabal gacanta uu qabto kulaha wallahi inni la uhibbuka ya mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay walaalayaal waa rasuulka ilaahay hadalka waxa leh waa rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ma aha shakhsi caadi ah hadalka qof kale inay yar oo 20 jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayu nabi maxamed gacantay tuu qabtay uu leeyahay wallahi inni la uhibbuka ya muaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay oo maxaa lagu jeclaaday ragaas oo ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaatay ma madaxweynaha jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysa ما منافق با جلالات مودي ومحمد عليه الصلاة والسلام خلقك إلهي أبو ري كي أغو خير بنا أغو شرف بنا أغو كرامة بنا أيا كل يا معاد والله إني لو أحبك هداد مهرد هذا دح جوكتو وحاد كدق انت هاي أذيك أولي إلهو مهرد إذا أن دح جوكا كاوين وكاقيمة بدن هذان كي أودعايا haddaad maqaayada fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaada iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanul qalmaha waxaad ku leedahay waa lisaanul xaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay la igu yeedhay waxa igala qiimo badan ubadkaaga igala qiimo badan waxalii wixii amarka ilaahay loo dayacaano ogow وعسي وضيعينها خلاص نيك صلاة ضيعينا وحكستنا وضيعي صلاة نيك ضيعي هيركي سو ضيعي مسؤوليات هدوها ينا وضيعي تو دوني هدي لودي بو ضيعي واي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافتي سيبو اورنجري ورياض الزمن كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيغا ayaa shaqeynayay qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nabiga looga waramayay daana markaas nabigu qofka uu kala garanayay ma muumin ba mise waa munaafiq mise waa kaafir ama waxyigi uu go'ay buu yiri anaka waxaan eeganaa daahirkiina eeganaa Umar bin Khattab naga khayrka aragnana waan aaminaynaa
oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki weynana aamini mayna buu cumar ibn khadaab nin ayaa u yimid oo yidhi yaa amiir almu'miniin waatan dowladdii islaamku ballaaratee aniga maad iga dhigtidaa maaragtaane waali maad iga dhigtidaa maaragtaane nin mas-uula oo magaalo maad iga dhigtidaa xaakim markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa waa runta beritoole ii kaalay buu yidhi noodkaan kuu diyaarinaya magaalaan kuu dhiibaya un amiirkaaga dhigayaaye nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli cumar binu khadaab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi yaa amiir almu'miniin oo ciyaalka yaryarna maad dhunkanaysaa markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkaygii maaha maxaan u dhunkan waaye wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhiyo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu qoray ii dhiib warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaadu ka jexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weyde seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi oradoo reerkaaga u naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala alahl kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weyde ood u damqani weyde ood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weyde seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaab buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunye ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeena hargeysa muu biiraa mise uu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan maqnaadeen soo noqdoba meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashkoogee laabtooda uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenii sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumarba adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaadhana culummadaan ku riixaynaa bas war ayaan ku riixnaa culummada aanu caalim ma yihiin salaadda caalimka lagama rabo salaada faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkana waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaaddo mujtamaceenna diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin cajiib abu talxa ninka la odhan jiray waa ansaari buu ahaa ummu sulaym radia allaahu canha waa anas binu maalik hooyadii oo mu'minada oo muslimada ayuu damcay inuu guursado markaasuu u haasaawo yimid inaan ku guursadaan rabaa ka warran waxay ku tihi maad islaamtay markaasuu ihi may laakiin diin baan haystaa anu bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay eeg markaa bay ku tidhi diinteed haysataa afalaa tastaxyi maad xishoonayn bay ku tidhi maad xishoonayn diinteed haysataa ma ninkaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa le diin baan haystaa xishoo bay ku tidhi diin ma haysatid diin annakaa haysanna diin waa diinta nebi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hada huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu bay ku tidhi hadal macnihiisu ahaa yaa abaa talxa soo noqo bay ku tidhi haquusan kaalay haddaad soo islaamtid bay ku tidhi mahar iyo mariin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maaya islaamnimada aad soo gashay
ayaan meherkayga iyo mariinkayga u qaadan bay ku tidhi maxaa gabadha agteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu naar ka badbaado cajiib oo islaame wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga u gees sal alla alay slam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tidhi soo celi anasow markuu islaamo markay u soo celiyey ayay ku tidhi haddaba anasow hooyada u guri bay ku tidhi yacni hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tidhi maaragtaane waa kaasa ninka maadaamuu ballankii buuxiyey anna ballankayga waan buuxiye waa ninkaygii bay tidhi abu طalxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yaa rayta haweenkeennu mee gabadhaa ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay ridihiisa doonayaan may haweenkaa ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu طalxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihiioo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa umu sulaym ilmahaygi yaraa bal iga warran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tegtay uu ka xasiloonni badan yahee isqabooji bay ku tidhi xaaji iska naso safar baad ka timid isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay uu casheeyey gogashiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is arkeen uu barakeeyey ayay ku tidhi intay barida u fadhiisisay yaa abaa طalxa ay dhegayso su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inakumaan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay lahaabaa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana kaco iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallo mare ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu طalxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin waa lana baray tarbiyad baa la baray iyaka ina lilaahi ma akhada walahu ma acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka gabdhihiisa ugu horeeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isaga unbaa iska leh waxaan haynana isaga unbaa inoo dhiibtay war maxbaan leenahay inaku ma lehid maalintaad hooyadaa ka soo baxday inanu hooyaday ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وإذا وحيكو الشيء أدقوا أويايا دتكنا أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد الشيء محا نبحنا إليهين إلهي أمر قيسا انت دادويدا كنا شهي إلالي ودينتا إلالي وصلاة إلالي وأمرك إلهي إلالي سيما أنت دمان يسد هذا دويدا وقبح ذا أدقوا فرحسن دتكنا أكتاد أي كبر ورطان تربية دابا صحابة الله بري وحا إلهي وقاتنا يساقون باسكالي وحان هاي سننا إلهي جل وعلا يساقون بين نور ديبتي لما هي واكا ميتك واكا سكعس وآس بيكترين لأن مركاسو أبو طلحة رضي الله عنه وحوسمي مركا waxa uu tagay nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkiiba uu sheegay markaa buu nabigu ku yiri arastumul laylata ya aba talha xalaytole maal arostay oo aros maad haydo xaajiyad islaantada xalay ma barakaysay markaasuu ya rasuulallah markaan casheeyay iyadiina aan barakeeyay kadib ayay arinta ii sheegtay buu ka yiri markaa buu nabigu ku yiri barakallahu fi laylatikuma isaragini xalaytole allah inii barakeeyo buu ka yiri aragii xalaytoola allah inii barakeeyo habeenkii ducadii baa ilaahay u aqbalay
caloosheediiba habeenkiiba raximka ilmaa u galay ilmihii wuxuu noqday wiil buu noqday wiilkii maalintuu dhashayna nabi maxamed baa loo keenay cabdullaahi buu nebigu u bixiyey yaa taxniigga nebiga u sameeyey magaca nebiga u bixiyey dhabtii nebi maxamed baa lagu qabto lagu ciyaarsiiyey waxa uu yidhi sufyaan bin cuyayna waxaa la arkay ilmihii yaraa oo 9 wiiloo culamaa isaguna dhalay ilmo barakaysan muxuu dhalay muxuu dhalaa sheegade awlaad barakaysan buu dhalay mid barjeeyana muxuu dhalay mid barjeeyo buu dhalay qabiili buu dhalay qabqabluu dhalay siyaasi buu dhalay laakiin ninka diini buu dhalay ninka barakaysan reer duriyad barakaysan buu dhalay ilmo barakaysan buu ahaa barakadiisa waxa uu daliila habeenkuu raximka ku dhacay buu nebigu yidhi baaraka allaahu fii laylatikuma is-aragiini xaalatol allah inii barakeeyo maalintuu dhashayna dhabta nebi maxamed baa lagu ciyaarsiiyey taxniigga nebiga u sameeyey magaciisana nebiga u magacaabay sufyaan bin cuyayna oo ruwaatulxadiis ka mid ahaana wuxuu yidhi 9 wiiloo culamuu ilmihii dhalay buu yidhi allahu akbar hadihi ummu sulaym radia allahu canha walaalayaal dadkaas agtooda diinta qiimo la lahayd gabadhaas budcigeegii bay ku iibsatay diin meher iyo marin waxay xaq u lahayd waxay ka doorbiday inuu abu talxa diinta islaamka soo galo inaguna maanta muslim walaalkeena oo qaraabadeenna oo talkeena ayaa agteena bilaa salaad ku dhimanaya goormaan diinta u sheegnaa ma taqaanaa soomaalidu goorma isku gurmataa markuu qofku dhinto markaa unbay baraarugi ma la aasay qabrigiisii ma la tegey nacashkii ma la soo qaaday kafankii ma loo soo gooyey badh reerka oo dhan baa qabuuraha iman maxay ku qabanayaan waa kaas war intuu qofku nool yahaa la rabaa gacanta in la soo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo dacwadda lagu soo xidho loo dulqaato loo sabro loo kaadiyo laga quusan ambiyadu ma quustaan diintu dadaalkaa bay nooga baahan tahay kulligeen insha allah dadaalka diinta ma guddoonnaa insha allah dhahada war si fiican u hadlo insha allah dhahada diinta dadaalkeega han guddoonno oo marka laga idhahda wakhtigaaga qaybi oo ilaahay dartii u bax marka laga idhaahdo xagga dambe ha eegin xagga dambe ma taqaanaa islaanta meheradda ubadka waa xagga dambe وحق الدنبه فأما من أوتي كتابه وراء ظهره معاكو حقا فسوف يدعو ثبورا ويصلى معاكو حقا إنه كان في أهله مسرورا حق دنبها إيجن رير كان ضيع لكم له هضيعن رير كاغا كاجها كاجتجن بلا مصاريف كاجتجن sidii ninkii nebigu u yimid deegdha awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu ku jawaabay nebigu awrkaaga dabar ilaahayna tala saaro reerkaaga masaariiftooda uga teg ilaahay dartiina u baxo wakhtigaaga yar qaybi isyar qorshee insha allah dhahada walkeenna allah shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allah siiyo طاعة الله إنه معانيه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له يا منجي الغرغى يا منقذ الهلكى يا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين إلهي سيدي ومولاي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بنور الإيمان اللهم ردنا إليك ردا جميلا ألف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور
جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين